وهو غطائي حول الرمال. qaabka ilaahay uu la mucaamaloonayo makhluuqaadka marka nafta laga siibayo way kala duwan tahay. rasuulkeennaana ka warramay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. wax yar baynu isdul taagi doonaa sakaraatulmowtka iyo laxawga iyo kulaylka geeridu ay leedahay. ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga warramay in geeridu ay leedahay maandoorsan. wajaءat sakratu lmowti bilxaqi dalika maa kunta minhu taxiid. haddaad awood iyo adkaysi lahaan jirtay, haddaad maal iyo adduun lahaan jirtay, haddaad kursi ku tooqi jirto oo aad ka talin jirtay, marka malakulmowtku yimaado cidna kama haybaysto. maca daalik haddana qofka bini aadmigaa si aada iyo aada u xanaf leh oo xanuun badan buu uga saaraa nafta malakulmowtka. wuxuu tilmaamay nabigeennu iyaday sidaa tahay ayaa haddana ay sii kala sahlan tahay sida uu ula mucaamaloonayo malakulmowtku. ciddii macmiil ilaahay u ahayd ee amarka ilaahay qaadan jirtay ee saalixiinta ka mid ahayd waa la dhadhansiinayaa mowdka iyo geerida. laakiin marka loo eego dadkii adduunyadan ku loo faray ee ilaahay ku caasiyey, iyaga si aada iyo aada u daran buu ula dhaqmayaa malakulmowtku. nebigaana ka warramay calayhi salaatu wasalaam qaabka uu ula dhaqmo malakulmowtku mu'minka iyo kaafirka. mu'minkii loo fududeeyey baa haddana xanuunkiisa iyo damqashada mowdku ay sanawaad ay ku reebtaa xasuus iyo dhibaato. nebigaa ka warramay xadiid uu baraa binu caazib warinayo. nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam uma yajii'u malakulmowt. malakulmowtkii ayaa imanaya calayhi salaatu wasalaam. inta hore ilaa iyo cidiyaha iyo faraha malaa'ig baa cilaajinaysa, malaa'ig baa soo saaraysa nafta. markay qarqaradaa gaadho waxaa xilka la wareegaya malakulmowti aladii wukila bikum. malakulmowtkii la idiin wakiishay ayaa arinkaa la wareegaya buu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala. marka ay soo dhowaato bahashaa nafta ay qarqarada timaado wakhtiga towbadu xidhan tahay ayaa malakulmowtkii uu la wareegayaa naftii inuu qibdoodo. waana wakhtiga ay ugu saxariirka badan tahay ee ay ugu damqashada badan tahay. halkaa markay ku soo ururto ayuu malakulmowtku la hadlayaa naftii mu'minka isagoo oo sabaalaynaya ayaa wuxuu ku odhanayaa ayatuha nafsu tayiba, naftii wacnayday. riwaayo kalena wuxuu odhanayaa ayatuha nafsu almutma'ina, naftii xasiloonayday, akhrijii ilaa makfiratin min allahi wa ridwaan. soo bax, ha baqanin, ilaahay raalli buu kaa yahay, dembi dhaafna ilaahay wuu kuugu ballan qaaday. markaasay naftii soo dareeraysaa sidii biyo ka soo shumaya sibraar oo kale ayay u soo qulqulaysaa oo ay isa soo dhiibaysaa baa layidhi. laakiin haddii ay nafta la saarayaa naf mujrimada oo adduunyada wax teella ah aan dhiganin, ilaahayna xidhiidh aan la lahaan jirin hadday noqoto, marka ay bilaabanto ciqaabteedu saacaddaasaa ciqaabka u bilaamaya. waana lagu saxariirinayaa sakaraatulmowtka. malakulmowtkuna si ihaano leh oo aan haybad lahayn ayuu ula hadlayaa. nebigaa ka warramay calayhi salaatu wasalaam. waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma yajii'u malakulmowt. malakulmowtkii baa wakhtigeedii markay gaadho buu imanaya xataa yajlisa cinda ra'si. qofkan dhimanayuu madaxiisa fadhiisanaya. markaasuu naftii la khitaabaya, naftii la kalaamaya, la hadlaya. wuxuu ku odhanayaa ayatuha annafsu alkhabiisa, naf yahay aan fiicnaynee dulliga ahi, akhrijii ilaa sakhatin min allahi wa qadab. waxaan kuugu ballan qaadayaa oon kuugu bishaaraynayaa in ilaahay uu kuu cadhaysan yahay oo ilaahay cadhadiisa aada la kulmi doonto. soo bax, maanta wixii laga bilaabo ihaana ku bilaabantay. markaasaa naftii waxay ku kala didaysaa jidhka intiisa kale, dib bay u maagaysaa naftii. goortaasaa malaa'igtii nafta qaadaysay ee caawinaysay malakulmowtku way isugu imanayaan ruuxa kan. markaasay karbaash ayay la dhacayaan, yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum. intay dhabarka iyo wejiga ka garaacaan ayay malaa'igtu ku odhanaysaa akhrijuu anfusakum, soo saara nafta, maxaa u lexe jeclaabaysaan? way dhammaysatay yani wakhtigeedii, fursaddeediina way dhammaatay. saacaddii ugu dambaysay iyo daqiiqadii ugu dambaysay baa la joogaa. wakhtiga hanaga lumin inaan soo saara nafta.
akhrijuu anfusakum alyowma tujzawna cadaaba alhuuni. markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax kaloon idinku suureeyo garan maayo, waxaan ku suurayn lahaa sida nafta loogu saxariirinayo, ruuxa nafta laga qaadayo, adigoo soo qaatay bir asafuud, waxa weeyaan waa bir sida fargeetada oo kale leh oo darafyo leh oo dab la geliyey oo maro suuf ah oo la qooyey lagu daliigayo. marka maro suufa inta la qooyo bir cadaabantayna lagu kala daliigayo, lagu kala qabanayo, yani maradaasi way isku soo kogtaa, markaasay googo'daa. sida maradaasi ay isu soo jiidato oo kale ayaa jidhku isugu soo kogayaa naftaas malakulmowdka uu ka saarayo ee khabiisada ah. deedna xidid bay u go-aysaa baa naftu nebi calayh salatu wasalaam, xidid ayay u go-aysaa naftaa la saxariirinayo ee malakulmowdku goortaa uu ka qaadayo ruuxda.